dhammaantood degmooyinka dalka ayaa laga kala dhisayaa dawladdu oo aan cid la kaashanaya ku bixinaysa $1 milyan oo dollar. koob iyo soddonka iyo kana ku dar 230 dhisme miisaaniyadii dawladda ayaa laga dhisay iyadoo aan shilin meel kale laga soo darin intooda badan waa meel aan iskuul lahayn waxa ku jira meelo ardaydu ay istul fuushanaayeen haddii si kale loo yiraahdo arday waliba waa inuu helo ugu yaraan 1 mitir oo laba jibaaran oo wax ku barto waliba xilligan ay xanuun jiraan. dugsiyadan cusub waxaa wax ka baran doona 75,000 oo arday sida wasaaradda waxbarashadu ay sheegtay. waalidiinta deegaanadaasi ayaa sidoo kale sheegay in fursadan ay in badan sugayeen. deegaanka biyashiinu uu xukuma waa deegaan balaaran waxaan u baahnayn maanta noogu horeysa iskuulka inta soo kala soo dhisan qayb dhan baan gacantayda ku dhisnay oo anagu jeebkayga ka bixinay xukuumadda kulmiye waxaanu eegaynay inoo soo dhawaato way bilaabantay in la kordhiyana waanu doonaynaa. ardayda markii uu horeysay waxbarasho ka helaysa fursadan ka soko waxa iyagana culays kaga yaraanaya ardayda Hargeysa u iman jirtay si ay wax u bartaan kuwaas oo imika deegaanadoodii ku laaban kara oo ay waxbarasho ka heli karaan. Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa.